waxaa weli go'doon ku jira deegaano ballaaran iyo degmooyin ka tirsan gobolka Barri kadib markii ay jireen jidad qaliil ah oo loo mari jiray degmooyinkaasi iyo gobolada kale ee dalka roobab mahiigaan ah oo ka daay inta badan deegaanada Puntland. deegaanadan go'an ayaa u badan kuwa ku teesan xeebta iyo halka ay ku soo afjaranto silsiladda buuraleyda golis, taasina waa mid sii adkaysay gelitaanka deegaanadani maadaama ay u dhaxeeyaan buuraley teesan iyo dhanka kale oo badda ah. maxamed yuusuf jaamac tigay iyo xildhibaan cabdulaahi yuusuf qaylo oo ka tirsan baarlamaanka Puntland kana wada tirsan guddiga gaarka ee ku dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo gurmashada saameynta ay reebeen roobabkani oo gaaray qaybo ka mid ah deegaanada ay waxyeeladu soo gaartay, waxay si cad u sheegeen in bulshada deegaanadaasi ku jiraan go'doon dhinacyo badan leh una baahan yihiin gurmad soo degdega. barta aanu taagannahay ayaa socodkaygii ku istaagay annaga dhulka naga dambeeya dadka ku noolaa oo dhan halka ayay go'doon ku yihiin. waa marinkii ay u mari jireen Boosaaso iyo dekedeeda iyo noloshooda oo dhan. waa marinka ay dadka xanuunsada iyo dadka soo aadaya ee Boosaaso iyo Puntland inteeda kale iyo Soomaaliya hadii la yiraahdo marinkii ay soo marayeen weey. marinkii maanta waa go'an yahay barta aan taagannahay qof dhaafi kara lama arko. dadkaas waxa weeyaan sahaydii iyo cuntadii iyo wax walbana waa ka go'een. waxay u baahan yihiin gurmad degdeg gurmadka ay ugu baahi badan yihiin ma aha cunto iyo raashin iyo dhar la siiye, waa hungurigii ay noloshooda ku xirnayd oo wadada ahayd in loo dhif in dadkan go'doonka ku jira in lala soo gaaro oo wadada loo sameeyo oo gurmad lala soo gaaro. waayo meel wax u maraan male hadda xilli waxa lagu jira xilligan ximir baa la yiraahdaa, badina way kacsantahay waa u jeedaan. halkaani waa meeshan ugu sahlan waa halkan celisay waxa la yiraahdaa boqoda la yiraahdaa. meeshan boqoda la yiraahdaa waa dalcada ka dhaadheer baa jira, dhariin baa jira, bayda gooyaa jira. waxaas dad ma mari karo. qofku markuu dhulka baabuurta mari jiray waa gurguuranaya qofku markuu yiraahdo inuu maro gurguurad xataa dadka khatar gala. maxamed cabdiqaadir cali cigaal oo ka mid ah dhalinyarada samafalayaasha ee Puntland kana mid ah koox yar oo sahanhaan u tagtay deegaanada roobabku waxyeeleeyeen iyo saameyntu intay laagtahay waxa uu baaq cod dheer ah gaarsiiyay bahdiisa dhalinyarada. waxa uu nimid inaan ka qayb qaadano gurmadka walaalaheen roobabka iyo duufaanta ay waxyeeleeyeen. waxaan leeyahay qof walba oo reer Puntland gaar ahaan dhalinyaro reer Puntland dhalinyaro dhiiga haydin dhaqaaqo meel walba oo joogtaan gudaha iyo dibad oo inay gacan ka geysataan sidii dadkan loogu gurman lahaa. waxa go'doon ah in ka badan 7 maalmood dadkeenni ma haystaan waxbarasho, ma haystaan caafimaad, ma haystaan ganacsi. marka dadkaas waxay sugayaan waa annaga. waxaan rajaynayaa dhammaan dhalinyarada Puntland inay maaragtay ka qayb qaataan sidii dadka loo gurman lahaa. samafale maxamed yuusuf jaamac tigay iyo kooxdiisii la socotay waxaa saacado badan ku qaadatay inay gaaraan deegaanada fogfog ee ka tirsan gobolka Barri oo ah halka ay ku dhacday saameynta ugu badan ee roobabkani. walina waxaa jira deegaano ay u suurtoobi weyday tagitaankooda jidadka oo go'an aawadeed. markii ugu dambeysay waxaan soo kornay buurtaan aad u jeedaan oo buqda la dhaho. buurtaan markaa soo gaarnay gawaaridii halkaas ayaa uga soo degnay. halkaas ayuu gawaaridii nooga eg yihiin oo hadda kadib wax gaari ah kuma socon karno. waa inaan lug aan ku soconnaa sababtoo ah buurtii way qaraxday. wadadii yareed oo la mari jiray oo buurta cirifkeeda ahayd ayadina qaraxyo waaweyn ayaa ka samaysmay oo biyi sameeyeen dhagaxun waaweyn ayaa ku soo dhacay. waa deegaan isku darsaday qurux, dhul daaqsimeed, beereed iyo barwaaqo dhinacyo badan leh oo ay u sii dheer tahay inuu yahay gobolka kaliya laga helo xabkaha qaaliga ah ee meediga iyo xijiga oo ah barwaaqo u gaar ah rabbina ku marnaysay deegaanadani. balse caqabada koowaad ee haysta degmooyinkani leh barwaaqadaasi dihin ayaa ah inaysan lahayn jidad wanaagsan oo loo maro marka laga reebo labada wado ee kala ah Lafagoro iyo wadada Dhabaaqo oo labaduba hadda go'an una baahan dayactir ballaaran si socodka gaadiidka ee degmooyinkaasi uu dib ugu soo laabto. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.